غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala inaynu ku dadaallo. naf iyo shahawaad baa dadka la xiriira, shaytaanna waa ku lamaanye, mar walbana waad sibqan. laakiin inaynu toobad keenno, dembigaan iska ilaalinno, hadduu inaga dhacan ilaahan u soo laabanno, inaan diintaa baranno, ku toosnaannoon dhaqnaannaa laynooga baahan yahay. ilaahay aadama haddaynu nahay laga soo bilaabo aadam, waxna waa layna faraa, waxna waa laynaga reebaa. in garab taagan oo shahwo naf iyo shayaatiin ka faa'iidaysanaysa oo amarkii inaan la fulin, wixii la iska reebayna aan la dayn, inagu dhiirigelinaysa oo inagu xambaaraysana waa badan yihiin. dadku duunyada waa la waayaa, waayitaankeedana waxa ugu badan eed gaarto inaad dunida ka tagtoo dhimato wey. haddii aadan waayinna mar walba dhimashadu waa ku sugaysaa. kollaba waa la tegi, goormaa la tegiyo sababtee loo tegi unbaa kala duwan iyo xaggee oon wax badan qaarkood laga ogeyn. wamaa tadrii nafsun maadaa tagsibu hadan wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut. qof og ma jiro wakhtiguu dhimanayo iyo meeluu ku dhiman doono, qof og iniguma jiro. laakiin waxaynu wada ognahay inaan dhiman doonno. dadka muslimkiihi iyagoo toosnaan laynaga faray, dabcan toosnaanta waa la kala toosnaanayaa. waxaa laga yaabaa qof heer bay u gaadhaa halka ugu dambayseen hiigsanayno, toosnaantii ilaahay iimaanka iyo rumaynta iyo maalinta aakhiro ahayd inaynaan luminin, waa halka ugu dambaysa. waxa meeba meel uu kaa saara shaydaanku, oodba meelaha ka isku cayrsataanba meelaha ay tahay muranka iyo waswaasku inuusan gelin asalka iimaanka iyo yaqiintii rabbi iyo aakhire iyo wixii waajibkaa la yaqiiniyo wey. taasuu ka dambeeyaa camalka iyo ku dhaqanka iyo raacitaanku. laakiin halkaaba haddii lagu fadhiisto inaad ku dhaqantood raacdaay way adkaanaysaa. nebi aadam calayhi salaam markii malaa'igta u sujuuda la yidhi, ilahay waxbuu indhihiisa ku tusay. ibliis baa gooni u istaagay oo yidhi anima sujuudaayey. malaa'igtii oo dhan baa sujuuday ajmacuun haddii lagu yidhi, jibriil baa ku jira, israafiil baa ku jira, malaa'igtii kala duwaneedoo dhan baa ku jira. wiil yaroo caasi ah oo ibliis la yidhaahdo baa gees u istaago uu yidhi anigu ma sujuudayo. abaa an yakuuna maca asaajidiin, waa diiday inuu sujuudo. markii la weydiiyey wuxuu yidhi anaa ka fiican, midaan ka fiicnaysaan ugu sujuudayaa. faanka asal iyo reer la isugu faano maalintaasuu aadamaha la soo abtirsaday. ilaa haddana weli waa la socdaa, anaa kaa aabba fiican, anaa kaa asal iyo reer fiican. ibliis markii la yidhi naar baa lagu xukumay, ilaahay wuxuu weydiistay cimri dheer, towbo ma weydiisan. wuxuu yidhi kii horreeyey aadam waaba la noolahaye, ilaahay waxaan ku weydiisanayaa kan ugu dambeeya aadamaha aakhara inaan la noolaado qiyaamada laga gaadho. ninkaasi nin cadho iyo ciil badan qaba wey. waa la siiyey. marka la siiyey cimriga dheer, tawbiya alla u noqod ugama faa'iidaysanay, umana dalbane wuxuu ku dhaartay aadamahan inuu jid kasta u fadhiisanayo, meel kastana u gelayo, dhan walbana kaga imanayo. horay baan kaga iman, oo gadaal baan kaga iman, oo midig baan kaga iman, oo bidix baan kaga iman. intaa marka uu dhaaranayo, aadam waa goobjoogoo waa arkaa, waa dhegaysanaya. jannada aadam la geliyey, waxaa ilaahay baa mar kale aadam la hadlay oo yidhi ina haadaa caduwun laka walizawjika falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqaa. war adiga xaaskaagaba cadowgu idihayuusan jannada idinka saarin, dhib badan baad la kulmaysaan. aadam jannadii baa la yidhi wakulaa minhaa ragadan xayu shituma, meel allaale meeshaa doontaa jannada intaa leeg, walaa taqrabaa hadihi shajarata, geedkaa keliya iska ilaaliya. hal geed baa laga reebay, jannadoo dhanna waa loo fasaxay. nafta aadamuhu wixii daal la yidhahdaa ugu daran. ninkii ibliis ahaa aadam horay buu kaga yimid, oo gadaal buu kaga yimid, oo midig buu kaga yimid, oo bidix buu kaga yimid, isagoo u dhigaya inuu daacadu yahay, wax dan u ahna u sheegayo. wuxuu dhaar beena ugu dhaartay waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin. dhaar buu ku maray ilaahay inay ka dhab iyo daacad ka tahay dadkan danta aadan dantiisa iyo khayrkiisa
iyo mustaqbalkiisa wanaagsan iyo waxuu fiican inuu gaari inuu ka shaqaynayo qof raba inuu god kugu rido kaalay god baan kugu ridayaa kuma yidhaahdo dhagartaadaan ka shaqayna kuma yidhaahdo maalinkaasay soo bilaabatay been in lagugu dhaarto waxaan jirin oo khalada laguu sheego kii boqnaha ku goynayey daacad baan ku ahay uu ku yidhaahdo laabta ku garaaco saa darteed daacad baan ahay kanaan ka shaqaynaya wanaag baan rabaa kuma filla ilaa munaafiqiintina waxay la noolayd innahum muslixuuna annagaa wanaag ka shaqaynaynaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqan gaalnimadii islaamka inaan iswaafajinno hal jid wada qaadsiinaan rabnaanu isku darrun bay lahaayeen sidii unbay u soo socotay taariikhda basharka ninkii ibliis ahaa marna shahwe adduunyuu dadka ku jiitaa marna shubha iyo shaki diineed buu ku biiraa mid walbana ciidamo badan iyo junuud fara badan inuu leeyahay ilaahay baa aakhare ku sheegay fakubkibuu fiihaahum walghaawuun wa junuudu ibliisa ajmacuun junuud badan inay yihiin ciidamo badan ciidamadu waa laba kuwo aynu aragno oo aadamo ah oo u shaqeeya iyo kuwo aynaan arkin oo jin ah min aljinnati waannaasi waay alladii yuwaswisu fii suduuri اnnaasi min aljinnati waannaasi waay labadani waa isku xiran yihiinoo waa wada shaqeeyaano midba midka kale wuxuu ku dhaamo buu u sheegaa hadalka iyo weedhana waa la isla xardhaaya waa la isla qurxiyaa shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli shayaadiintii sidaas ahayd dee dunida dadka waa lagu sii daayey waxaa ka mida kuwa insiga ah kuwa adiga kaa mida kuwaad dhalasho wadaagtaan nasab kuwaad deris wadaagtaan kuwa aad dal wadaagtaan kuwa aad luqad wadaagtaan kuwa aad isku reer tihiinoo laga yaaba qaaraanka tolka inaad la wada baxdaan baa tifka ah walidaalika xudayfa nabigu waa kii ku yidhi markay socotee u dambaysa kuwa jahannamo albaabadeeda dadka ugu yeedhayaa jiri doona markaasuu yidhi xudayfa rasuulka ilah noo tilmaan aan iska garanne wuxuu yidhi hum min jildatina wayatakalamuuna bialsinatiha innagay inala midab iyo muuqaal yihiin oo inala dhasheen isku luqadna waan ku hadalnaa soomaaliga mid baa soomaali ku hadla carabta mid baa carabi ku hadla ingiriiska kuwaa ingiriis kugula hadlaya sawaaxiliga mid baa sawaaxili kugula hadlaya caddaanka mid baa la cad madowga mid baa la madow guduudka dinkii guduuda mid baa la guduudan baadiyaha mid baa baadiyaha la jooga magaalada mid baa magaalada la jooga badda mid baa badda la maaxaya hum min jildatina wayatakalamuuna bialsinatina kuwaasi wakhtigan dambe mar kastoo aakhiru zamaanka loo sii dhowaadaba waa xadiidkii anas ee nabigu yihi maa min caamin ilaa waladii bacdahu sharu minh sanad ka dambe un baa ka sii dhib badan ka dartay maahanee ka raysay inta badan la arki maayo waxaa ku soo batay mujtamacaadka muslimka ah gaar ahaan innaga soomaalida ah junuuddii ibliis ee wejiyada badnayd waa inugu soo badanayaan mar walbaba qolyo kuwa kaniisadaha u furtay dadkii maatida ee soo qaxay liiska kaniisadahay ka buuxaan soomaali christian baa meel walba taagan social media haddaad tiraahdo idaacada haddaad tiraahdo youtubeyada haddii aad gasho soomaalida gaalada ahi way fara badan yihiin waa hore maynaan arki jirin waa la sheegi jiray laakiin marar badan baa wax arkay la waayi jiray halkaa markii laga soo tegey labaa maalmahan inagu cusub maalmaha labaa inagu cusub labadu shaqo isdhammaystiraysay qabanayaan ummadda soomaaliyeed ee burburtay dalkoodii burburay dadkoodii burburay daarihii ka dumeen dunida ku baylahsan ee qaxsan meel walboo tagtaba in ku qaxaysa oo baylahoo rafaatan aad ka heli waxa inoogu dambeeyey aan rajada ka qabnay haddaad dhimata iimaankaaga aakhara jannun baad geli bay ahayd intaasaa inoogu dambeysay adduunyada waxooga inaad hesho inaad weyda waa laga yaabaa waa la cararo ha la qaxo hugta madaaficdu ha ka dul yeedho aakhirka dunidan mar walba waad ka tegi lahayde marka la dhinto jannaad gelaysaan bay ahayd jannada saaad u geli lahayd iyo salaadahana tuko bal khayrkana ku dadaal bacalaqal dunida haddaad nacfi weyday aakhare aad nacfiga baaqiga ee jannada heshid intaasayd wixii noo soo hadhay intiibaa hadda biyaha la isugu soo galay maalmahan laba qolaa aada carcartoodiiyo u socotaa qolale muslimba ma tihiin maxaa ka tukanaysaan haddaad sujuuddaan gaalaad tihiin haddaad salaad tukanaysaan gaalaad tihiin haddaad tawxiidsataan gaalaad tihiin kol laba naar baad gelaysaan aad baa maalmahan looga hadlayaan u malayno intay 78kii qarnigii hore soo baxeen oo culimmadu ku horgufeen bay hog iyo gudad galeen godkiisay qoraxda uga jireen bay hadda soo baxeen bannaanka madaxa u soo bixiyeen iyadana culimmada khayr allaha siiye
si aaday ugu rideen waa lagu wadi doonaa ilaa ay godkii 40 kale ku noqdaan ajashoodana cibriga inta ku dhawaata haddaba waxay uga harsan yahay inta mar godka lagu celin doonaa insha Allah taala laakiin qoladaas iridda qolo taagan waay gaalaatiin banaanka la taagan yihiin kuwa gudaha ku jira oo dadka gaalooba leh kuwa gudaha ku jira oo qaar masaajidada la joogaan oo dadkii diintiiba ka waswaasinayana way joogaan quraanka baa laga waswaasin ilaahay baa laga waswaasin wax laga sheegi sunnada nabiga laga waswaasin qarba waxay ku leeyihiin quraanka kaliya weeye nabi maxamed baa sameeyay ama yiri iska daa 5 salaadood ma jirto quraanka leen ma sheegin 5 waqti ma jiraan aadaan salaad ma jiro see loo aadaamaya jumcada nuudiya li salaati wali hadda rabto uu dheh saad aadaantada yaqaan 4 ragcadood ma jirto 3 ragcadood ma jirto 2 ragcadood ma jirto rukuuc jilba la qabsaday ma jirto atahiyaad ma jirto allahu akbar lagu xidha ma jirto assalaamu alaykum laga baxana ma jirto salaadu maxay tahay inta iska taagto marka waxa akhrido jilbaha dhigo wada rukuucsan tahay kadibna wajiga dhig kadibna istaaga hore isaga sii soco quraanka salaada sheegay uu kulay been way qday quraan ma sheegin nabi maxamed banaanka iska mari way qoladaasi kale diinta ka dareera waa junuudu iblis cusub waa kuwa kale quraankii baa shaki laga gelin quraanku cadaalad maaha haweenka cadaalad uma sameeynin xuquuqdii haweenka meel laga dhacay qurumada midoobay iyo xeerarkii Vienna ka soo baxay iyo xuquuqul insaanka lagu heshiiyay baa diinta qayb nasakhay baa lagu leeyahay quraanka qayb badan baa la tuuray oo qashinka ku dara وما دعي UN كان نسخي ساسو عقلي صحده كينيا واكو غرب تاغن الله اكبر بوليه قولنا مساج كان ugu gal diintana ka soo saar way kii kale dibadu ku sugayaayo gal baatay naarta galwa mid kala ku imanaya wuxuu ku leeyahay waxaas muslimiintu waa rumaysiin oo isku raacsan yihiin muslimiinta dhammaan waxay qabaan qofkii waxa diiday inuu gaal yahay ama laakiin waan ku faraxsanahay inaan rumaysnayn qaar wuxuu ku leeyahay tacliinta islaamka qaar baaban aqliga gali karin qaar baaban la soo qaadi karin qaar baa wax laga yaqyaqsada waxana quraanka ku yaala buu kulay Allahu akbar salaadana ku agtaagan masaajka uu gale adeer ridda u soo dareeri way anna dibadda markay soo baxaan waa gaalaynaya adna dadka diinta shaki kaga beer shaytaanku qori ma wato budna ma wato subabaawaga mindida watee banaanka toorideedin gelinayana ma shaydaanka shaqadiisa u badan shaki gelin waay waswaasin waay nabi saadarteed waxaan ku soo wuxuu yiri saasa shaydaanku tusaalo ina siiye meel fog dhow oo taqaano oo shaki lahayn buu kaaga bilaabi marka dambana meel buu shaki dalaq ku siin uu kaaga tagi marka wuxuu ku leeyahay dhagax dhulkan yaa abuuray Allah baa abuuray dadkan yaa abuuray Allah baa abuuray cirkan yaa abuuray Allah baa abuuray geedaha dhirtan yaa abuuray Allah baa abuuray waxan yaa abuuray Allah baa abuuray waa Allah isaga yaa abuuray inta ujeedada hore dhanba ma ahayn markii aad ku celcelisay tiraado wax kastaba wax abuuray baa jira isaga Allah yaa abuuray waa saasu idin dhihi doonaa saasu idin dhihi doonaa kuwa nabigu sheegay jildatina way takallamuuna bi alsinatiha oo calankii shaydaanka xambaarsan iyo ibliisna waa inagu dhex jiraan xaafadaha inala degan yihiin jifadiya qaraabada iyo qoyska qaaraankeena la bixiyaan suuqaas ay nagala ganacsadaan masaajidda qaarkood inala joogaan laakiin masaajidka waxa loo joogaa dadka hidihoobay dadka in laga xaqo oo albaabada loo furo oo dadka diinta ka bixitaankeeda laga shaqeeyo midna banaanku u taagan yahay kaniisad waay midna guduhu ka soo shaminaya midna halkaas uu taagan yahay waabad gaalowdeen buule marka intaasi waxa la isugu yimid wardalna ma hayno dadna ma hayno dunyana ma hayne intii islaamnimada aheedee haynay ba hadda la isugu soo galayaa dadka muslimkii inta inay ka waaya aragsanaadaan wacyigooduna ka fiicnaadaan loo baahan yahay marka waxyaabahaas oo kale aynu iska ilaalino waqtiyada soo socdaan qaybo ka hadli doonaa dadna hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo junuud ibliis aan tirin doonaa haddii la yiraahdo nin walbana yaa la dhibsanin meesha uu joogay ciduu yahay baan sheegi doonaa si tolkii ay u qabtaan ama ubadkooda yar ay uga ceshadaan shaytaankan qoyska gamida sida qaalibka oon qaybi ku jirinna malaha taban intaan ogahay baan ka hadlayaa waa laga yaabaa qaalib marka inta soo hadheenan ogeyna idinku ila ku dartaan oo ogtihiin reebel la kana kaga jira tiraahdaan baan dhici karta markaas ujeedada markaan sheegaynay waxa weeye dadkii ahliya qaraabtinimo loogu dhuumanayay inay ogaadaan
oo isna ay islaamka iyo towbada ugu yeeraan ubadkoodii iyo reerkoodana ay ka ilaashadaan ilaan warmay wadan lama hayno waxna inooma harine intii aan jannada ku geli lahayn haddii laynagaga ciyaaro oo laynaga shaki geliyo oo dhibkan adduunyada aragtaan aakharana naar laynoo jiido soo dhibaato ma ilaah subxaana wa tacaala naf iyo shaytaan iyo sharba allah inaga xijaabo iimaanka iyo islaamnimadana allah inagu sugo fitanka adduunya ee diin iyo adduunyadana allah inaga badbaadiyo allahuma inna nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma alhamna rushdana waacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaha anta waliyuha wamawlaha allahuma ahdina bihudaak اللهم اجعل عملنا في تقاك اللهم اجعلنا من يسارع في رضاك اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك